bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada daawadayaal warka xogta TV qodobadaad ku daawan doontaan waxaa ugu dooran shirka dib u heshiisiinta galmudug oo qarka u saaran in uu fashilmo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo sheegtay in xidigii Axmed Madoobe ay iyaga ismagacaabeen aysan aqoonsan doonin wiil u dhalay Siyaad Barre oo ku dhintay dalka Cumaan inta badan ku-xigeenadii taliyaasha ciidamada qalabka sida oo loo bedelay taliyaasha ciidamada qalabka sida taliyihii ciidanka booliska maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo loo magacaabay taliyaha asluubta dowladda Soomaaliya gudoomiye cusub oo loo magacaabay gobolka Banaadir maxaa ka taqaan Cumar Finish waad maqli doontaan daawadayaal dowladda Siiriya oo magaalooyin mucaarad ka haysta oo ogolaatay in gargaar la geeyo haddii aan ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka inta aad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal aan ku bilowno Dhuusamareeb wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxay sheegayaan in shirka dib u heshiisiinta maamulka Galmudug oo qarka u saaran yahay in uu fashilmo qaar ka mid ah hirgooyinka tagay magaalada Dhuusamareeb ayaa dib ugu laabtay meelihii ay ka yimaadeen kadib markii ay sheegeen inuusan muuqan qabanqaabada dadaalo la doonayo inuu shirka ku furmo beelaha Galmudug qaarkood oo shirka uga socda magaalada Hobyo ayaa dhankooda diidan ka qaybgalka shirka ilaa la soo afjaro shirka dib u heshiisiinta ah ee ka socda magaalada Hobyo waxaa sidoo kale khilaaf ka taagan yahay cidda maamulaysa ammaanka xarunta dib u heshiisiinta lagu qabanayo oo dhawaan ay ku dagaalameen ciidamada booliska nabad sugid ah wasiirka ka tirsan Galmudug ayaa warbaahinta u sheegay in shirka uu qarka u saaran yahay in uu baaqdo markii saddexaad maadaama guddiga aysan ku guuleysan soo dhameystirida beelaha ka qaybgalaya shirka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wax kama jiraan ka soo qaaday doorashooyinkii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo ee labada madaxweyne lagu kala doortay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda aysan aqoonsaneyn dhammaan natiijooyinkii ka soo baxay doorashooyinkii Kismaayo shalay ka dhacay wasaaradda ayaa labada madaxweyne ee lagu doortay Kismaayo oo kala ah Axmed Madoobe iyo Cabdirashaad Xidig waxay iyadoo aan magacaabin doorashadooda ugu yeertay iscalimo saaris dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aqoonsan doonto oo kaliya doorasho wadar ogol ah oo lagu qanacsan yahay xor iyo xalaal ah isla markaana ay goobjoog ka yihiin dowladda federaalka iyo beesha caalamka shalay ayaa laba madaxweyne waxaa lagu doortay magaalada Kismaayo waxaana xiisadii ka dhalatay arinta ay weli ka taagan tahay magaalada Kismaayo sidoo kale waxay dhacday xilligii dowladii Xasan Sheekh Maxamuud balse dagaal ka dhacay Kismaayo waxaa ku soo haray Axmed Madoobe markaana Muqdisho shirka golaha wasiirada ee shalay Muqdisho ku yeesheen oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa lagu magacaabay taliyaasha ciidamada difaaca nabad sugidda booliska iyo asluubta golaha wasiirada oo ka jawaabaya soo jeedinta wasiirka difaaca amniga gudaha iyo cadaaladda ayaa cod aqlabiyad leh ku meel mariyay magacaabista taliyaasha ciidankan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa si rasmi ah loogu magacaabay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo muddo sanad u ahaa haye xilkaas iyo agaasimo ku-xigeen Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xajar ayaa loo magacaabay taliyaha booliska waxaana xilkan laga qaaday Generaal Bashiir Cabdi Ameeriko taliyahan loo magacaabay booliska ayaa sidoo kale ahaa ku-xigeenka taliyaha ciidanka xoogga dalka Generaal Odawa Yuusuf Raage ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka xoogga dalka waxaana xilkan laga qaaday Generaal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe Odawa ayaa horay xilkan u sii hayay xilka taliyaha ciidanka lugta Generaal Mahad Abdiraxmaan Aadan ayaa loo magacaabay taliyaha ciidamada asluubta waxaana xilkan laga qaaday Generaal Bashiir Cabdi Jaamac Bashiir Goobe generaalkan loo magacaabay taliyaha ciidanka asluubta ayaa sidoo kale ahaa taliyaha ciidanka booliska maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maanta waxay isbedel ku sameeyeen taliyayaasha ciidamada qalabka sida ugu horeyn golaha wasiiradu waxay ammaaneen taliyayaasha iyo ciidamada qalabka sida ee kala duwan howlaha wanaagsan sugidda amniga iyo xoreynta goobaha argagixisadu ay ku dhibto dadka Soomaaliyeed howlaha ay ciidamadu ka hayaan ayay si fiican u ammaaneen waxayna wax ka bedel ku sameeyeen si howlaha loo dardargeliyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida ugu horeyn waxa xilkii uu hayay laga wareejiyay
genaraal aadan cilmi indho qarsho taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana xilkaas loo magacaabay sarreeye guuto odawaa yuusuf raage oo hore u ahaa taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka soomaaliyeed ayaa hadda laga dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. sidoo kale waxaa xilkii uu hayay laga wareejiyey ama laga qaaday genaraal bashiir cabdi maxamed taliyaha booliska soomaaliyeed waxaana xilkaa loo magacaabay genaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed. sidaasi lamida waxaa xilkii uu hayay laga qaaday ama laga wareejiyey genaraal sarreeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe waxaana oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaana xilkaas loo magacaabay genaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo hadda wixii ka dambeeya noqonaya taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed. sidaasi lamida waxaa taliyaha ayaa loo magacaabay gobolka Banaadir madaxweynaha Soomaaliya loo magacaabay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo magacaabay oo hore u ahaa Maxamed Filish madaxweynaha ayaa faray gudoomiyaha cusub ee gobolka inuu sii dhameystiro qorshayaashii horumarineed iyo waxqabadkii muuqday ee gudoomiyihii hore Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow anigoo xeerinaya baahida loo qabo in gudoomiyuhu yeesho gobolka Banaadir si loo sii ambaqaado qorshayaashii horumarineed ee socday sidoo kalena tixgelinayo soo jeedinta kala duwan oo waaya aragnimada mudane Cumar Maxamuud Maxamed Finish uu u leeyahay gudasho wada waajibaadka xilkan ayaan u magacaabay. madaxweyne Farmaajo ayaa u rajiyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho in ay u fududeeyay mas'uuliyadda culus ee loo igmaday isagoona kula dardaarmay inuu si hufan oo daacadnimo iyo wadaniyad leh ugu adeego bulshadan. xeerka madaxweyne ayaa lagu magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa dhaqan galaya saxiixa madaxweynaha oo isla taariikhdu uu maanta saxiixay. Cumar Finish ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee sida weyn ugu soo caan baxay xilliyadii hogaamiye kooxeedyada ay ku dagaalami jireen magaalada Muqdisho. 2006 wuxuu ka mid ahaa gudoomiyaha cusub ee la magacaabay 9 hogaamiye oo Muqdisho kaga dhawaaqay isbahaysiga la dagaalanka argagixisada isla markaana wuxuu taageero ka heli jiray dowladda Mareykanka. Cumar Maxamuud Finish waxaa loo magacaabay 2017 wasiirka diinta awqaafta xukuumadii uu hogaamin jiray Cali Maxamed Geedi. wuxuu xildhibaan ahaa baarlamaankii 7 iyo 9 ee Soomaaliya. wuxuu ka mid yahay gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay gobolka Banaadir dadka sida weyn uga soo horjeeday dowladii hogaamin jiray Xasan Sheekh Maxamuud. wiil oo dhalay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ayaa ku geeriyooday dalka Cumaan. wararka ka imaanaya dalka Cumaan ayaa sheegay inuu geeriyooday wiilkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre oo lagu magacaabi jiray Xasan Maxamed Siyaad Barre. Xasan Maxamed Siyaad ayaa sidoo kale loo yaqiinay Xasan Rubeyti ayaa mar ahaan jiray safiirka Soomaaliya ee dalka Cumaan. waxa uu ku geeriyooday magaalada Maqdis ee dalka Cumaan oo sanadihii u dambeeyay ku noolaa sida ilo wareedii lagu kalsoon yahay u xaqiijiyeen warbaahinta. dowladda Suuriya ayaa magaalooyin mucaaradka haysta u ogolaatay in gargaar la geeyo. dowladda Suuriya ayaa sheegtay in wadooyinka u furayso gaadiid sida gargaarka ay doonayeen inay tagaan magaalooyinka dagaalku ka socdo ee gobolka Idlib. wakaaladda wararka Siiriya ee Sana ayaa lagu qoray in wasaaradda arrimaha gudaha Siiriya ay fasaxayso in gudaha u galaan magaalooyinka qaar ay weli ku sugan yihiin kooxaha dowladda ka soo horjeeda. magaalooyinkan la ogolaaday in gaadiidka raashin gargaar ah la geeyo waxaa ka mid ah magaalada Sooraan la yiraahdo oo gobolka Idlib ka tirsan. sidoo kale waxaa qorshaha ku jira in gaadiidkan ka soo qaadaan magaaladaas dadka jilicsan ee magaaladaas ku go'doonsan. ciidamada dowladda Suuriya ayaa ku dhawaanaya magaalooyinka ugu dambeeyay kooxaha mucaaradka ay ku sugan yihiin dalka Suuriya. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalka gobolka Idlib oo socday tan iyo bishii Abriil ee sanadkan ay ku geeriyoodeen 500 oo ruux. sidoo kale qiyaastii 400 oo ruux ayaa ku barakacay dagaalkan. dhanka dowladaha Turkiga iyo Mareykanka ayaa isku raacay in dalka Syria ka sameeyay goob dagaalka ka reeban oo lagu badbaadin karo dadka shacabka ah. wararkay baahiyeen warbaahinta Turkiga ayaa lagu sheegay in toddobaadka dambe ciidamada Turkiga iyo Mareykanka in howlgallo wadajir ah ka sameyn doonaan magaalooyinka ku yaala xuduudda Turkiga iyo Syria. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Xogta TV. intaa war nuucaan ku kulmi doona sidaas iyo amaana Allah. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka